السلام عليكم وعنا wanaagsan daawadayaasheena qiimaha iyo qaayaha naga bado meel walba joogtaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub muuqaalkan insha Allah hadduu Ilaahay idmo waxaan idinku soo gudbin doonaa 10 orahyo oo ku saabsan aamusnaanta balse marka hore daawada haddii ay tahay markii ugu horeyso asbaqa channelkeena xigmadiyahan waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe inoo saarto sidoo kalena aad furto gambayalka si aad u noqoto qofka ugu horeeya mar waliba hela muuqaaladeena cusub orahda koowaad haddii aad daawacdo qof aamusnaantiisuna ay dheeraato waxaad ogaataa qofkaas inuu ku ciqaabi doono ciqaabka adag hadalka orahdan waxaa laga hayaa oo laga diiwaangeliyey quraanka caanka ah reer Masar ee Najiib Maxfuud orahda labaad waxaa jiro hadal aan waxba la sheegin iyo aamusaan wax kasta sheegto orahdan waxaa laga hayaa quraanka caanka ah ee dhanka riwaayadaha ahna gabyahal reer Britain ee William Shakespeare orahda saddexaad hadduu hadalku aan waxba ka bedelayn xaaladda dhabta ah ee taagan aamusnaanta ayaa ka qurux badan kana wanaagsan orahdan waxaa laga hayaa falsafadyahanka caanka ah reer Britain ee Bertrand Russell orahda afraad aamusnaanta xilliyada qaar ma ahan daciifnimo balse waa ilbaxnimo waxaana kaliya garan karaa dadka qaar oo garashada u saaxiibka ah orahdan waxaa laga hayaa dhul sahmeer reer Mareykan oo lagu magacaabo Thomas Paine orahda shanaad marnaba ha u malayn inay aamusnaantu tahay ilowshiyo dhulka wuu aamusan yahay balse gudihiisa waxaa ku jira kun volcano orahdan waxaa laga hayaa gabyaaga caanka reer Masar ee lagu magacaabo Faruq Juwayda orahda lixaad aamusnaanta qofka dumarka ah waa fariin digniin ah oo ku wajahan ninka waxayna tilmaamaysaa inuu ku dhow yahay inuu ka baxo qalbigeeda orahdan waxaa laga hayaa gabyaaga reer Suuriya ee Nizar Qabani orahda toddobaad ha u malaynin in aamusnaanta qofka xorka ah ay tahay nuqsaan iyo waxaan wanaagsaneyn maxaa yeelay aamusnaantu way ka xeel dheer tahay waxa ay maqlaan dhaguhu orahdan waxaa laga hayaa jilaaga reer Falastiin ee Maxamed Bakri orahda sideedaad aamusnaantu waa hurdo dhawaaquna waa soo jeed iyo baraarug orahdan waxaa laga hayaa madaxweynihii shanaad ee dowladda islaamka ee Umayyadeenta Cabdulmalik bin Marwan orahda sagaalaad waxaa laga maarmaan ah mararka qaar inaan aamusno si dadka kale noo maqlaan waayo aamusnaantu waa fan weyn oo ka mid ah fanka uu leeyahay hadalka orahdan waxaa laga hayaa qoraa ahna kacdoomin reer Argentina ee lagu magacaabo Che Guevara orahda tobanaad waxaa jiro xilliyo ay aamusnaantu ka dhaawac badan tahay hadalka orahdan waxaa laga hayaa gabyaaga caanka reer Jarmal ee lagu magacaabo Johann Goethe